ugu dambeyn diyaaradii Somali Airline waxay shaqo bilaabaysaa bisha September bartamaheeda ama dhamaadkeeda waa sida uu noo sheegay agaasimaha ama maareeyaha airportka magaalada Muqdisho. Somali Airlines waxay maraysaa final stage insha Allah flight ugu horeeya waxaan umaleynaa mid September inay bilaaban doonaan this year insha Allah waa dhameynay shaqadeeda insha Allah taala waxaan noo soo socday insha Allah taala oo beba waagi u dhameynay Salam Air oo Oman oo hadda bookingkii furantay September bilaabaysa Rwanda Air oo Rwanda ka imaanaysa ayadana assessment wax walba u dhameynay oo November bilaabaysa Flynas oo Saudi ka imaanaysa ayadana ay u dhamaatay. Ahmed Macalin Xasan oo runtii ah nin qabiir ah in badan ka soo shaqeeyay arrimaha aviationka haddana ku dhex jira waa guul farxad leh in Somali Airline in ay ummadda Soomaaliyeed hadda kadib ay ku duuli doonaan. runtii waa wax la soo dhaweeyo runtii waxaan arkaynaa in garoonka magaalada Muqdisho isbedel weyn uu ku imaan doono iyo socdaalka Soomaalida wuxuu ku imaan doonaa in badan waxay ku duuli jiraan ama Ethiopian Airline ama Turkiya ama diyaarado yar oo waxa waaye runtii local iska ah laakiin hadda haddii intaasoo diyaaradood ay bilaabato diyaaradii Soomaalidu adeegaysana ay runtii waxa waaye safarada dhaadheer galayna ama Europe ama India ama Carabaha ama Turkiya aadayna haddii diyaarad Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed uu shaqaale ka yahay afkooda kula hadlaaya horta wax lagu farxo la soo dhaweeyo waa guulaha runtii waxa waaye dawladdan ay ku tallaabsatay waxa la soo celiyay hawadii Soomaaliya waxa lagu guuleystay in deemihiina laga cafiyo waxaba far badan aan tiri jirnay in cunaqabateyntiina laga qaaday inaan UNT kursigeena ku fariisanay inaan marka tanna waa guulaha runtii waxa waaye calaamada Somali Airline markay ku dulduulayso caalamka marka garoomada caalamka aad ka duuleysaan oo aad arkaysaan diyaarado kale ama astaamo kale ama dalal kale diyaaradahoodii oo aysan diyaarad Soomaaliyeed ku dhex jirin waa wax runtii waxa waaye Soomaalida aysan khibrad badan u lahayn 35 sano ama 36 sano la soo dhaaf inaysan diyaarad Soomaaliyeed laakiin generationka hadda jira waxay nasiib u yeesheen in waxa waaye caalamka ay ku arki doonaan diyaarado Soomaaliyeed ku xardha marka waxaan leenahay waa guul oo farxad runtii waxa waaye inaan idin la qaybsado maanta ugu talagalay soo dhawaad